xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen samaysashada dawladda Imaaraadka Carabta ay ka samaysanayso saldhig military magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. warkan waxa dhameystirkiisa Hargeysa nooga soo diray Maxamed Faarax Omaade. xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si cad uga soo horjeesteen saldhigga military ay xukuumadda Soomaaliland ka siisay magaalada Berbera dalka isutaga Imaaraadka Carabta. mudanayaashani ayaa aragtidooda saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ay ka sameynayso magaalada Berbera waxa ay ku saleeyeen inuu khatar ku yahay Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa haddaba su'aashu waxa weeye qaacidada halka laga bixiyay maxaa lagu bixiyay yay waxtar u leedahay maxay soo kordhinaysaa maanta Soomaaliland ma tahay dal la ictiraafsan yahay oo adduun weynuhu ictiraafsan yahay oo dalka la leeyahay qaacidad baa laga siinayaa Berbera ictiraafsan yahay oo laba dal oo siman oo is ixtiraamaya oo heshiis wada galaya arrintu ma tahay mise waxa weeye qaacidad la iska bixinayo waxa liyaala wax lagu iibsanayo oo maanta la taaban karo oo ummadda Soomaaliland ku qanci karto iyo waxay u soo ajiibaysaa midna aanay jirin hubaal waxa ah niman kale qaacidad baanu Berbera ka qaadanaynaa ogolaanshaheeda waxay ka soo qaateen xamar xukuumadda xamar joogta ayaa soo siisay su'aashu haddaba waxa weeye Soomaaliland gooni isu taageedii miyay ka noqotay ma qayb ka tirsan Soomaaliyadii hore ee 1990kii burburtay ee lagaga dhawaaqay Burco 18kii May in Soomaaliland gaar isu taagtay rubuc qarnigaana loo halgamayay arrintii Soomaaliland miyay ka noqotay waxaanu leenahay saldhigga military ee soo gaaraya ee la leeyahay xukuumaddii Soomaaliland ayaa bixisay hadday dhab tahay oo ka dhab tahay waxaan leenahay arrintaas waa arrin aad iyo aad looga xumaado oo shacbiga Soomaaliland aanu marna aqbalaynin uu ka soo horjeedo saldhig military muxuu yahay saldhig military waxa weeyaan saldhig laba dawladood oo muctaraf ah ay ku heshiiyaan weeyaan oo dhex mara weey inagu waxaynu nahay haddaan nahay Soomaaliland dal aan wali la ixtiraafin waxaynu nahay dal ka soo maxaan ku noqday Soomaaliland waxa la Soomaaliya ka soo goostay oo ka soo noqday isu tagii Soomaaliya ka soo noqday waxaynu nahay dal madax bannaan laakiin aan adduunku wali ixtiraafin baynu nahay geesta kalena mas'uul sare oo ka tirsan hoggaanka xisbiga wadani ayaa isna aragtidiisa diidmada waxa uu ku biiriyay mudanayaashaasi golaha wakiilada dad baa ku sheekeynaya Ruushku Facebook laha Mareykanku Facebook laha midna base ma ahayn intuba facility wax la yiraahdo facility-gaasi waxa weeyaan marka loo baahdo in la isticmaalo nasiib wanaag Mareykan uma baahno waa kii naga tagay isagoo intaga wuxuu bixin jiray sidaan saraakiisha ka maqlay 100 milyan 60 waxay ku noqon jireen ciidamada iyo qalabkay ku noqon jireen 40 dawladda la sii jiray hadda halkan waxaad maqasheen 1 milyan iyo badh waxaan u maleynayaa mala ribe iibinayeen dambe iibinayaan Maxamed Faarax Omaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa.